munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay soo agaasimtay wasaaradda tamarta biyaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada hoose kala yimid deegaanada dowlad goboleedka Galmudug madaxda dowlad goboleedka Galmudug oo kamid ahaayeen madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan madaxweynaha dowladda Axmed Ducaale Geelle Xaaf wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha Axmed Shire Falagle waxaana si weyn xoog loogu saaray intii munaasabadu socotay khudbooyinka ay soo jeediyeen madaxda xaaladda abaarta iyo biyalaanta xilligan ka taagan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug oo maamulka oo goobta madaxdiisu ka sheegeen in dadka xaaladda biyalaanta haysata ay wixii dadaalo oo ay sameey karaan xilliga kan loogu dhaqaaqayo go'rintii goobta waxa ka hadlay wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha Axmed Shire Falagle waxaana uu yiri waxa sahal lagu sameeyay 20 barood oo Galmudug kamid ah oo bisha Juun ka bilaabi doona biyo xireenna waaweyn hadaa taqiineen xulfooyin iyo baliyo yar yar hoos loo wado waxa idin ku soo socday qofkii nolosha ku gaadho biyo xireenna waaweyn oo waxa loo yaqaan dhaamamka ah oo webiyaal u dhigma kuwaas oo aad ku manaafacayn doontaan dadka dunyada hadii la haysto waxaan leenahay sanadkiisa kale dhulka Galmudug shacbiyada Galmudug in ay heli doonto biyo wanaagsan waxaan ku daba joognaa wasaaradda taas waa ku dhiirigelinaynaa inay biyo wanaagsan oo dadku ka qabeeraan ay soo saarto madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa sheegay in maanta ay lama huraan tahay in dadka xaaladda biyalaanta haysato ay biyo helaan dadkuna intii ay awoodaan ay gurmad sameeyaan Afrikada dawladaha ugu waaweyn oo Masar iyo Itoobiya waxay isku haystaan webiga Niil iyo Suudaan iyo dhulka wada aragtay buuraha Ilaahay ka soo deeynahay biyihiisa say cabi lahaayeen annaka webiyaalkeena dib loo raaco sidoo kale waay biyaha marka hadii geed tahay aday bashar tahay banu aadamkoo dhan wax walba noloshooda Ilaahay wuxuu ka dhigay biyaha laga dhigay ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay xaaladda biyalaanta ee maanta ka jirta deegaanada dowlad goboleedka Galmudug wuxuuna fariin u diray hay'adaha ka shaqeeya dadka xilliga xaaladda biyalaanta ay soo wajahda caawintooda bulshaweynta Galmudug ee dunida daafeeda joogtana wuxuu ugu baaqay in cid walba garab istaagto halka ay ka awoodo si dadka biyo loo gaarsiin lahay maamulkiisana wuxuu intaasi ku daray in qaybtooda ay qaadanayaan weelashii solar baa laga dhigay motor dabo qabqab lama jiro ceel kale oo badan waa la qodi doonaa dhaaman baa la sameeyaa sida wasiirku sheegay oo mararka qaarkood lagu dabaasho hadii la rabo beer lagu waraabsado waxa ugu muhiimsan inaan u jeesano hadda inaan beeraha falano beer waa muhiim sheekh ay waxay soo furayaan hadda ceel kale solar lagu soo xiray dhaamkiina waa noo bilaabanayaan roobna Ilaahay ha noo diiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xilliga kan xaalad biyalaana ayaa ka jirta deegaanada dowlad goboleedka Galmudug muddooyinka ugu dambeeyana waxa si weyn u cabanaya dadka reer miyiga Cabdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusamareeb